كوفي وتكرن ما أنت بدو إنه كسر شيكيني وإنه كسر شيكيني سيزن كي سديدات حلقة السكوات حلقة اللي بعد نقول كوع عزمي رير ديول أيوكو عزمي رير ديول أيها كوشة فضل بدن بحيزين يجي إن هالكاس أيكو كلمان أو لوجو يرى لبعض ولا كوفي وتكرن ما أنت بدو إنه كسر شيكيني وإنه كسر شيكيني سيزن كي سديدات حلقة السكوات حلقة اللي بعد نقول كوع عزمي رير ديول أيوكو عزمي reer diyor ayaa halka ku shafo dad badan bixisay in halkaas ay ku kulmaan oo loogu yeero labada walaalo ah oo uu karan halka ku casumo codsigii dadweynahana uu yeelay halkaas aad iyo aad ay arimo badan oo xasaas xitaa leh oo xamaasad leh oo xaraabo leh ayaa halkaas lagu sheergareeyay ilaa iyo tuubaraac meesha kama maqnayn sunidol oo ka hadlaya marka qadartu iyo guushiisa Bobby Diol oo ka hadlaya isaguna guuldaradii noloshii uu ka dhacay sidii uu isku dhiibay xaaladii adka ee foolka adka ee noloshiisa aktarnimadii weyneed kadib uu soo maray kadibna uu sameeyay comeback aan caadi ahayn sidoo kale waxa carabka ku dhufteen odaygii aabahood ahaa Daramandara waati filimkii Karan Johar filimkan Rocky Orani Prem Kahani واتودي أضيق إسكالب حنشر فيلم روكي أو راني برام كهاني وهدي لهيدا كذا لي هاي ومعن عادي هاي نتيجة تدك كاش وين سديت تنك أي تسين شرنتي أحد تي خاص كهيد ووينك واتوسيي قبل الله يراهضو جابانا أسمي مع ذاس إن بدن بالغ فالوضي تاسنا مركز ماشا والقصة هذا القاضي كوفي وتكرن waxyaabo fara badan baa lagu soo hadal qaaday imika waxa uu galinaynaa si toos ah bal waxyaabi ay ka yiraahdeen iyo dhammaanba showgaas wixii laga hadlay iyo sida dadku uga falceliyeen iyo sida showgaasi ahaa Bobby iyo Sunny markii ay yimaadeen goobtaas su'aalo fara badan sidaan carabkuba ku soo dhuftay oo xasaasi xamaasad iyo xaraababa leh oo dadka qaar laftigooda xagasho ku sameynaya ayay halkaas ka yiraahdeen iyagoo marna qoslaya marna qiiroonaya haddaba aynu u guda galno sidii markii u horeysay loogu soo dhaweeyay showga isaga ee guuleystay uuna rugcadaaga Karan Johar iska leeyahay Coffee with Karan labadan wiil oo aad iyo aad loo xiiseynayay isla markii ay ka soo galeen irida weyn markaas meeshaas iyo fadhigaas isaga Coffee with Karan markii u horeysay isagoo labaduba u hambalyeynaya guusha imika taagan yihiin comeback aan caadiga ahayn wuxuu si khaas ah oo carabka ugu sii adkeeyay una sarakacay ninka la yiraahdo Sunny Diol isagoo marka u hambalyeynaya filimkiisa guulaha laxaad kale soo hooyay sanadkan 2023 waliba ku jira safka ugu horeeya yani jawaan bataan iyo qadartu waxay soo noolayeen rajadii balwuurka ee dhulka gashay ilaa intii cudurkii xumaa coronavirus uu saameeyay dunida kadib faalayn iyo hambalyo diiran oo uu u gudbiyay Karan Johar ninka odayga halyeeyga dalka Hindiya aktarka rugcadaaga Sunny Diol waxa sidoo kale uu weydiiyay aabihii wacdaruhu ka dhigay filimkiisa Rocky Orani Prem Kahani macni macdi iyo jugti iyada ahayd isagoo maanta door iyo 80 jira sidee bay u arkaan xaafadiisa su'aal noocaas ayuu labada wiil hor dhigay aad ayay u qosleen kixkixda ay halka badatay kadib Sunny wuxuu yiri aabahay wuu yaqaanaa wuxuu sameynayo wuxuu sameeyana sida banaana wuxuu guuleystaa bariga waati ma garanaysaa hadal haynta dhukashadaas ay cirka isku shirarto dad badan siyaabo far badan oo kala duwan ay uga falceliyeen qaarkood ay yiraahdeen cimrigaagu tagay yani ceeb lagu masagootiye maanta markuu 80 gaadhay oo dhaafay oo 90 iyo 100 u sii kicitimiye daalamadar isagoon dareer dhaqan xumo sameeyay miyo iminka waayelnimo uu ku sameynaya halka dad kale ay yiraahdeen oo difaacin oo yiraahdeen wax weyn ma aha dhunkashadana filimka waa taa dhadhanka iyo xasaasiga u yeeshay oo macaanaysa filimkana filim hida ka dhigtay isaga laftigiisa markii la weydiiyay daalamadar waa tuu yiri heestii biikay qof weyn ani iimatid isagoo soo xiganaya ayuu wuxuu yiri jacaylka da'ma laha yani jacaylka anigu iyo adigu toona qof weyn
uma noqon karno macnaa jacayl waa jacayl haddaad 15 jir tahay iyo haddaad 100 jir tahay love is love romanticna nolosha ayaa ku dhisan oo halkaa muu matelin nin jilicsanee daalamadar oo weligay dadka far ku dili jiray wuxuu markana ku dilay isagoo fadhiya oo itaal gabay hadal ayuu ku dilay saaruuqa Hema Malina dhunkashada xitaa markii wax laga weydiiyay waxay tiri anuu dhunkashada weli maan arag hase ahaatee ninkayga wuxuu sameynayo iyo wixii kale uu kala garanaya haliyay qaran Jabana Azmi xitaa markii la weydiiyay oo la yiri sideed u aragtaa dhunkashadii kugu dhacday ninka odayga ee daalamadar kaaga timi waxay tiri oo si simple ay ugu jawaabtay oh my gosh way tiri farxad iga weyn miyay jirtaa ta kale fursada noocaasa oo ninka sida uu quruxda badan qurux lowga daalamadar diyaal yaa diidi karaa way tiri aniga waa jaanisba yani jaanis weyn ba ii ahayd inaan maanta isagoo macnaa daalamadar iyadu ma aragto inuu dhowr 8 jir yani daalamadar oo aan yaraantida macnaa dadkan isku ruuga cadeeya ayay ahaayeen dadkan la fi hore isku ahaayeen xada dadkan niyo waa dad isku soo marka showiyada good talentiga ay isugu yimaanayaan way isku soo way dadkan xasuusa ayay galaan geelaba xasuus baa lagu xiragaya ayay qaadaan marka waxay tiri Allah fursadaas alxamdulillah bay taagantahay mar hadii daalamaddarba maciyo jug ma garanaysa waan isa siinay oo uu dhunkaday yaa diidi kara bay leedahay iyadu waaba ku hanweyn I'm very proud of it bay ku leedahay dadkii taasina aad ayay ula dhaceen geesinimadooda iyo jacaylka sida ay u cabirayaan iyo xusuusta iyo waayahoodii iyo waqtigoodii hore dhinaca kale ilmadiyoodu waxaa soo duubay clip aabahood oo karan uu ka soo duubay marka aabahood wuxuu yiri yani aad iyo aad baan ugu faraxsanahay yani guusha inankayga Zanidiyool sidoo kalena Bobby oo si fiican oo caadi ahayn dib ugu soo laabtay saaxadda Atlanta marka wuxuu yiri aniga weligeyba yani wiilashayda aad baan u jeclahay labadeeda wiil wuxuu Zani aad buu igu yahay maadaama curadkii yahay Bobbyna wuu ugu yar yahay marka wuxuu Zani aad baan u jeclahay sidoo kale dhamaantay waxaan aad u jecelnahay Bobby way waa kii noogu yaraa macna carruurteeda waa kii markaas baxdaas ugu yaraa ilmaha ugu yarna waa ka jacaylka ugu badan la siiyo saasay tahay marwalba Bobby wuu masayraa oo wuxuu yiraahdaa aabo Zani ayaad iga jeceshahay ma garanayo wuxuu uga masayray ayuu yiri marka halkaasna qac ayaa ka yeedhay ninkii Bobby Diol ahaa oo halka waxa la fashiliyay in uu walaalkii macnaa ويسجعل هين لبضن آد بيسجعل لبضن آد بالغافس كيه لبضن ولا تنمدد يجعل كودا معها كوا مرنا بأوشك جلي كرا آد بيسجعل لكن ساسي تاي عروت مر والبوا كوير هذا أبو قف كاس يجتش عليها هو ينا قف كاس يجتش عشان مركب بوبي سند ديال سيدا أبيه وجتش عليها وجتش عليها أي مركب قرلقي رضا إسقى ولي بير هذا Bobby marwal basani waa sida aabahayga kale wuu ku inta kusha ma sha Allah ilaahay soo daayay ayaan leenahay waa laba walaalo aad soo jecel dhinaca kale labadan walaalo waxa wax laga weydiiyay kelmadda ah nepotism yani shirkadda Bollywoodka waxa ka shaqo gala dadka ay dadka leejimiinta ay dhaleen dadka lacagta leh ee dadka leejimiinta ee Bollywoodka weligood ku jiray ama ka soo tafiirmay kaliya ayaa chance loo hayaa dadka outsiderska ah ama dibadda ka yimaada ee aan ma garanaysaa qoys iyo qaraabo iyo qansax toona ku lahayn Bollywoodka lagama shaqo geliyo lagamana hadii la hayday fursadaasna mid u taala meesha ma habay dadku yiraahdaan ilmadiyo Bobby iyo Zaniyo maxaa taakleedin maxaa ka aaminsantiin ayaa labadooda la weydiiyay aktarada ama haliyada matalay Yamla Pagla Diwana kama ay labalabayn inay ka jawaabaan dareenkooda ku aadan mowduucan isaga ah isagoo markaa Zani waa sida loo kala weyn yahay oo hadalka hor qaatay wuxuu yiri Zani I don't know buu yiri ma garanayo now iminka I have come to the conclusion that's just stupid hadan hadalka idin soo koobaba taas waxaan oran karaa waa taqniino wuxuu yiri people simply say it dadku sir ayay isaga yiraahdaan taas because they cannot achieve something why waxba kuma guuleysan karaan they are angry about something so they have to draw something at someone maadaama waxba ku guuleysan karin oo ay afka buurayaan mar walbaba oo aan awood lahayn dadka ay wax iskaga leeyihiin sidoo kale wuxuu ugu sii daray maalma kamida adiga ayay tahay inaad cagahaaga isku taagtid muhiim maaha qofka markuu horeysa gacanta ku soo qabtay laakiin talentiga lagu sheegayo waa marka adiga maalmaha kamid waxa iman doonta adigu isu baahan tahay
oo cid kale aanay garab ku siin karin. Zani wuxuu ku sii daray intaa walaalahay annaga labadayadan walaala waa Zani iyo Bobby waxaan wax ku nahay waxaana anagu samaysanay because of the talent we have ayaan wax ku nahay. Of course buu yiri Dad Daramander started it off. Of course aabahaya ayaa sheekadan iyo taariikhdan noo soo bilaabay, but that's what every parent does. laakiin taas waa normal buu yiri. waa waalidkuna mar walba waa kuwii ilmahooda garab siiya gacan qabta. wuxuu ku daray waliba annagu buu yiri ma aan weydiisan inaanu Daramander una dhalo. yacni markii hore intaanan dhalan maan oran Daramander oo legend baatay kaale walaalo ilmaadeer iyo talbaynu nahay qaraabo iyo noloshii hore aan jiray noloshii dambe qaraabo waniyo ka Daramander aaba noo noqo iyo barakaashi kaale hooyano ma aan oran. laakiin waxa weeye waa nimco Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay ay taas ka dhigan tahay. waanu ku faraxsanahay laakiin annaga ayaa maanta guushan aan taaganahay isgaarsiinay. sidoo kale waxa hadalkii qaatay Bobby Diol ayaa wuxuu yiri familkeygu wuxuu yiri anaga waxay ahaayeen markoodii horeba dad dabada ka jooga yacni reer Kabuur oo kale ma ahayn, laakiin magacan iyaga ayaa ka samaystay shirkadda Bollywoodka. iyaga ayaa magacan samaystay macnaa iyagu waalid may lahayn meesha ugu jira laakiin talentigooda ayay meesha ku yimaadeen. annaguna يعني ما أنا دوران إني أنا والد نون نقدان لكن الحمد لله وانكم هاد علينا إله سبحانه وتعالى أي كردقة معنا وانكم فرحسنا هاي وحجري أنا وحن تصال أمودنا هاي ضدك لجمين تأيدلاين واي بل بوير شقة يدي بل حرفة يدي بل وحن النقطة أنا واي دنين كان أضيق مركو كشي كيني وتاريخ ديس كشي كيني نين كان بابي ليرة وصاصل هاي شقة جب أيا كيجمي وح الله وحو سمي أيو جرواي حتى هير وحو جاري وخمرجا القوشة وحن كل بويدو وصوت البضو وحو أحبتات من نلاش كدعي وحو كسقنا ذا حالة قف والب وكيق يقصد سكست وحو يرى فاميل كيك وأباهاي إيو ولالك أي قربيسيين وحن نقدم ميد أنكر أسو كعيني ويوا أديك أيا مركا قار وحا لباهي هاي إن النلاش أنا ما أن أودين بير آد أي إيجا كلا دات سنة وحو يرى ما أنت ugu darnayd waa maalintan maqlay inankayga hooyada kule maadaama hantida iyo raashinka iyo biilka xaaskayga ay soo shaqeyso aan ku noolaado anigu aan waxba hawlgab caadi aan iska wato sidii u ballaadho u bararay. wuxuu yiri inankayga ayaan maalmaha kamid waxaan maqlay isagoo hooyadii kule hooyo aab guriga ayuu fadhiyaa adiguna hooyo macaan maalin walba shaqeynaysaa maxaa khaldan what the hell is going on ayuu inankiisu lahaa wixii maalintaas waxba igu dhibcay jirkayga ayaa dibaaxiyay waxbaan dareemay waxaan go'aan ku gaaray inaan yacni dadkii shaqada يعني برودوسيرادي دايركتورادي انتان فدhiga ka kaco aan soo bariyo maadaama marka hore inaad violaha kibirka ku jira ayaa isna wuxuu u ogolaanayn inuu dadka gacmaha horsado markii shaqooyinkii loo diiday. mid kale wuxuu yiri shaqooyin aan ku khasbanayn ban bari dambe guusheedii kadib aan dalbanayay ama aan qaadanayay kuwaasoo ma garanaysaa dee ila waxaan doonay weeye iga guul dareysanayay. markii dambena waxaan noqday flop actor. markii aan sidaa noqday xaaladaydu ay aad u adkaatayna waxaan waayay qof caawiyo oo garabsiiya oo shaqaysiiya shaqadan way diidan saasay tahay. markii dambe waxaan go'aan ku gaaray intaan fadhiga ka kaco aan iyaga baryo iraada please give me a job yani shaqaysiiya walaalayaal weydin baahanahay yani aan horarsado kibirkaygii aan jabiyo. waxay laakiin taasna waan sameeyay markaan sameeyay xitaa heer waxa aan gaaray buu ku leeyahay taariikhdu iska sheekeynaya ogow heer waxaan gaaray buu leeyahay Bobby Diol markii aan weydiistay nin producer uu yiri way okay shaqo waan ku siiyay laakiin oh my gosh bal ninkaas heerka uu nolosha ka soo maray eeg xidigii weynaa ee Soldier bal meesha uu nolosha ka soo gaaray bal eega dhiirigelin ba inaga xitaa inooga mudan tahay inaan ku macnaa waana qaadano. marka wuxuu yiri markii aan helay shaqadii producerkaas shaqadii siiyay wuxuu igu xiray shuruudo aad iyo aad u adag. wuxuu igu yiri ninka ma garanaysa laba
labada actor inta badan mid baa doorka muhiimka ah qaata ama yacni leading role ka qaata marka wuxuu yiri ninka ka filimka kula matalaya ee qaybta muhiimka filimka qaadanaya la soo tasho oo waxa tirada okay ma tahay bal in macnaa please hada waa ninkii aniga asaga waa adigu de Akshay Kumar iyo Salman Khan iyo dadka asaagiisa ahaa ila dadka producer-ada dad baridu iska caadiya laakiin dadka asaagiisa ahaa inuu ku yiraahdo ayaa lagu kalfay boobay walaalayaal ama Salmano ama Akshayo ama Sunil iska daasagu saxada filmada uu ka baxsan Sunil Shetty yani ama Shariyo please aan kula shaqeeyo ninkii producer-ku wuxuu igu xidhay in adiga fasax ku weydiisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wuxuu yiri xaaladahaas ayaan soo maray marka wuxuu yiri anigu waxaan ahay tusaale ayaan u ahay dad badan ayuu yiri ha tusaale ayaan u ahay waayo anigoo xidig weyn uu idhalay xidig weyn isagoo idhalay ayaan haddana shaqo waayay oo aan waxba ku waayay bal maan hela buu yiri maan hela buu yiri intaan silcayo oo dhibaatoonayay haddii daalamadar laygu ixtiraamayo haddii laygu ixtiraamayo inaan meesha rug cadaayo ku leeyahay war daalamadar cidna kama awood badnayn cidna kama magac sarreyne maa laygu ixtiraamayo iyadoo la ixtiraamayo maa shaqlaysa waxaas ma jirto buu yiri qof walba talentigiisa ayaa meel dhiga ayuu Bobby yiri ninkii odayga ahaa ee halyeygii Gadar ayaa soo rogaal celiyay isagoo hadalkiisa si wata wuxuu yiri bal eeg buu yiri bal eeg guusha buu yiri sidaan ugu soo halgamay Gadartu wuxuu ku leeyahay 20 sano ayaanan guul urin waa 20 sano yani Gadarkii koobaad ayaanan guul urin aan u soo dadaalayay bal 20 sano ma laysiiyo shaqo oo maan guuleysto oo maan xidig weyn noqdo wuxuu yiri aniga ayaa dadaalkayga galiyay may wax walba i fududaadaan ma la yiraahdo daalamadar baa dhalay inankan ma anigoo sidii awoodii u lahaa in yar la ixtiraamo shaqooyin la siiyo oo rolo muhiim la dhiibo oo door khatar la dhiibo no buu yiri no adiga ayaa lagu baahan yahay annaga ayaan soo dadaalnay aabaha inuu soo dadaalay alxamdulillah isagana dhalay oo sharaftii karaamadii waa haysanaa laakiin xaaladaha qaar magac baad leedahay kuma caawinaysa marka ay ka daadsan tahay Bobby Deol markaas isna wuxuu haddana hadalka ku sii daray dadkii aniga sida ay gumaystay waxaan ku gaaray in aan dib ugu kalifo inay ii baahdaan waayo de xilligii ay ii baahnaayeen wax walba waan u qaban jiray laakiin xilligan u baahday waxba way ii qaban waayeen iminkana waxaan ku kalifay in ay wax badan ii qabtaan buu yiri bismillahir rahmaan halka iyada aad bay uga kullaadeen halka iyadana aad iyo aad ayay uga hadleen marka Gadartu waa tuude caalamka yani gariir ku sameeyay gariirna caadi ahaan reer Deol sidoo kale ninkan odayga ah ee Bobby Deol markii la weydiiyay macna comebackiisa halka uu wax ka bilaabay wuxuu filimkii aniga walaalkay iyo aabahay poster filimkan ayaan matalnay laakiin nasiib darro filimkan wuxuu noqday filim anaga naga burburay oo khasaare aan caadi ahayn run ahaantii soo gaartay laakiin wuxuu yiri 2018 marka 2017 kii waliba ka hor buu yiri ka hor 2 sano ka hor waxa ila hadlay maalmaha kamida ninka odayga Salman by John Khan ayaa ila hadlay isagoo aabahay ayuu ninkaasina sida caadiga sonkorta ayuu ku yahay bash ayuu ku yahay aabahay aad iyo aad buu u jecel yahay aabo aad iyo Salman Khan aan waxaan ku jeclahay waalidka sida uu ixtiraam u qadiro Zalu waan wadanaa gar iyo gardaraba waan wadanaa Zalu wuxuu yiri aabahay maadaama aad u jecel yahay wuxuu igu yiri diyaar ma u tahay macnaha waan arkaa inaad gabigaaga waa aad ciid cunaysid yani aan garab aan ku siiyo marka wuxuu yiri maxaan ku diidayaa wiila kaftamay aabaha waa doctor soo jeclahay isagoo caadi ixtiraamay i qadarinaya marka 2 sano ka hor baad markii dabana waa filimkan Race 3 iyo ogolaaday inaan ka soo qayb galo buu yiri marka guushayda iyo mahad celinba waxa horseed u ah buu yiri inaan soo noqdo ashraam filimkan ii guuleystay waa ka guul iyo abaalmarna aan caadi ahayn ku helay xitaa web series-ka marka wuxuu yiri waxaan aan sameeyay Zalu baa run ahaantii ka dambeeyay Zaluna sida caadiga aabahay buu sankorta ku yahay oo aad u jecel yahay ixtiraam iyo qadarin iyo aaba jacaylnimo ayuu horta halkaas iyada garab igu siiyay midda kale wuxuu igu daray aniguba wuxuu yiri Bobby don't worry يعني واحد يقص بحته
soo weydiiyay sababtoo aniga laftigaygu zanjadud iyo zanidiol oo walaalka ah ayaa marka ay iga ciirsanayd ee noloshaydii hore markii aan yaraa aan iyaga laftigooda aan garab isoo siiyey oo aan dhabarkooda usoo baxay adigana markaas isna yiri boobdol anama waa markaygii insha Allah adul basna kadib soo qaracay tusiidinkii bay filimka markaa ay wada keeneen oo ay markaa in badan way diyaarinayeen filimkaas waa kii caadi hadal hayntiisa comeback-an caadi han sameeyay kadibna waa kii class editor iyo filmadii caajibka ee Jilis Entertainment ay siisay uu metelay hostage buu metelay isagoo markaa aad iyo aad u amaanaya Jilis Entertainment waxa iskale markaa Gori Khan Shahrukh Khan iyo halka iyadana la oran karaa ayaa garab siiyay maadaama shirkadaasi door muhiim ah oo runtii amaano ay siiyeen marka ninkan aad iyo aad buu imika ugu faraxsan yahay guusha uu soo celiyay iyo waliba hankan iyo qabkan iyo waxaan ku iri yaani Diols inay soo noqdaan mid kale tubaraac ugu weynaa buu sameeyay oo Karan Diol markuu weydiinayay comeback-giisa iyo sida xaaladda uu soo bilaabay markuu ka sheekeyn lahaa qof walba shaqada uu diiday producer iyo director ba ah wuxuu sheegay xataa adigan ku imi yiri Karan oo xataa adigan ku imi waqtigaas ama aan wax ku weydiistay inaan kula shaqeeyo oo waad idiiday hallalay tubaraaci abid ugu adkaan kasto Karan uu kala gashay oo lahaa filbad wax noocaas oo lahaa laakiin halka iyada qac ayuu ka yeersiiyay sidoo kale actor badan ayaa wax laga weydiiyay sida uu arkan macna labadooduba waliba khaasada Sunud Diol ayaa aad iyo aad ugu socday actor badan sida Shahrukh Khan Akshay Kumar Nizalu isagoo markaa ka yiri مثلا waxa la weydiinay wuxuu ku neceb yahay wuxuu ku jecel yahay yani hada Shahrukh Khan oo kale wuxuu yiri waan jeclahay sida uu dadaalo filmada laakiin Akshay Kumar wuxuu yiri filimkiisa gadar iyo oo markaa isku dhacayeen filimkii xumaaye iska waxaan sanamadan bilaayada uu metelayay doorkan uu leeyimi Akshay Kumar macna horta wuxuu markii waxaan ku nacay filmada badan uu metelo marka labaadna waxaan ka xumaay buu yiri berigi gadar wati isku waqti la soo saaray marka clash weyn baa halka ka dhacay marka wuxuu lahaa yaani waan u digay oo waxaan ku yiri waniyo heerde Akshay in adeero hooy iska jooji yaani bilaay la kulmaysaa Sunudi macna lama tartami karay sida oo kala day yaani labadeena filin kala ilaali hadii kala ceeb halka ka dhacaysa laakiin dhagu ii dhig waay wixii ka dhacayna meesha waa looga yaani waan ka guul darasay meesha waa ku jabiyay buu ka wadaa filinkiisa sida weyn loo sugayay uu de ka khasaaray si ka filay Akshay Kumar ma noqono taasna waxa uu sababa macna aniga ayuu dhag jalaqaysiin waay iyo adu waxyaabo fara badan oo meeshaas oo kale oo ay ka hadleen way iska jiraan laakiin muhiimadu waa intaas asxaabtada qiimaha badnayd ee barnaamijkan halkaas maanta ku eegyahay aad baad u mahadsantiin kaliya laab mid kale dhiirigelintiina iyo waxaan ku garab istaagino mid mar walba aan ogahay weeye commentiyadiina wanaagsan ee quruxda badan ee dareenka leh ee waxaan ku ibush garaynayana aad iyo aad carabi luqad kasta lehna waa idin ka mahad celinayaa ilaahay idinkii kaliya laab thank you very much man leeyahay insha Allah taala وين لا سعوداية هدي لها إذا كذا ليه هي أنا وضع سعنا yeah MMB family I love you والله I love you guys